soo dhawaad saaxiibayaal dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in maraakiib caalami ah ay u ogolaanayso in si nabad ah ay ku maraan marinka Hormuz oo cabsi badan ay ka jirto iyadoo maraakiibta qaada shidaalka ay halkaasi ku xayiran yihiin iyagoo ka cabsanaya in weeraro gantaalo ay kala kulmaan Iran oo hore ugu hanjabtay in maraakiibta qaada shidaalka iyo ganacsatada shidaalkuba ay lacagaha shidaalka ku bixinayaan ay noqoto lacagta Shiinaha hadaba warbixintan waxaanu ku eegi doonaa hadalka ka soo yeeray Mareykanka Iran maxay kaga falcelin doontaa ma ku dhiiran karaan ganacsatada shidaalka iyo dalalka ee maraakiibtooda halkaas ay taagan yihiin in halkaasi ay maraan aaminaan ballanqaadka Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa shaacisay inay ogolaatay in maraakiib gaar ah oo caalami ah ay si nabad ah ku maraan marinka muhiimka ah ee Hormuz xilli ay sii kordhayaan walaacyada amni ee gobolka Khaliijka go'aankan ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay dadaalada lagu ilaalinayo socdaalka ganacsiga caalamiga ah gaar ahaan shidaalka iyo badeecadaha muhiimka ah marinka Hormuz oo ah mid ka mid ah marin biyoodka ugu mashquulka badan dunida ayaa ah marin ay maraan boqolkiiba in badan oo shidaalka adduunka ah lagana dhoofiyo sidaa darteed xasiloonidiisii ayaa muhiim u ah dhaqaalaha dunida mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadani ay la socoto qorshayaal lagu xoojinayo amniga maraakiibta iyadoo la kaashanayo dalalka xulafada la ah Mareykanka waxaa sidoo kale carabka ku adkeeyeen mas-uuliyiinta Mareykanka in Mareykanku uu sii wadi doono ilaalinta xorriyadda maraakiibta ee biyaha caalamiga ah go'aankan ka soo baxay Mareykanka ayaa waxa uu imaanayaa xilli ay jiraan xiisado sii kordhaya oo u dhexeeya quwadaha gobolka taas oo keentay cabsi laga qabo in marinkan uu noqdo goob isku dhac iyo dagaal ka dhaca dalal badan oo ku tiirsan dhoofinta iyo soo dejinta shidaalka ayaa soo dhaweeyay tallaabadan Mareykanka uu ku dhawaaqay iyagoo rajaynaya in gacan ay ka geysan doonto xasiloonida suuqyada tamarta iyo ganacsiga caalamiga ah si kastaba ha ahaatee weli waxaa jira walaac ku saabsan mustaqbalka amniga marinka Hormuz iyadoo la filayo in arrintan ay sii ahaan doonto mid si dhow loola socdo maalmaha iyo toddobaadyada soo socda Iran dhankeeda iyadoo sheeganaysa in amniga marinka Hormuz ay gacanta ku hayso ayaan weli wax war ah ka soo saarin balse hore ayaa ugu digtay Iran in maraakiibta qaada shidaalka iyo dalalka iska lehba in ganacsiga shidaalka ama lacagaha lagu bedelanayo shidaalku ay noqoto lacagta yuanka ee dalka Shiinaha laga leeyahay Iran ayaa la sheegay in arrintaasi ay ula gol lahayd in ay gargaar iyo caaminaad ka hesho iyo taageeraba dowladda Shiinaha balse arrinta hadda uu ku dhawaaqay Mareykanka ayaa waxay noqon doontaa mid dhigta loo taaga jawaabta ay ka bixin doonto Iran oo marin biyoodkaasi Hormuz gacanta inta badan iyadoo ay ku hayso